Assalaamu calaykum akhyaarta sharafta badan kusoo dhawaada janaalka dhacdooyinka dunida tuyub aad uga barateen barnaamijyo xiiso badan. Maantana mowduuca waxaan idinkugu haynaa dad la shaaciyay inay dhinteen iyagoo selfie iska qaadaya ama sawiro. Maanta waxaan mowduuca kusoo qaadan doonaa 3 dhacdo la yaab badan. Waxaan kasoo bilaabi doonaa nambarka 3 inagoo ku keenayna nambarka 1 ee ugu dambeeya. Dhacdada 3 waxay tahay odagyada dibida waa dhaqan waara oo Isbaanish ah. Mana jiro qaraar UN ama qaanuun UE ah oo awood u leh inay ku soo celiso sharciga. Booliisyada way sii socon doonaan, ragga ayaa dhiman doona ama dhaawacmi doona, halka kuwa ka badbaaday waayo aragnimada ay u yeelan doonaan. Waxaan sheeko la yaab leh aan ka soo qaadan doonaa. Waxaa dhacay Agosto 2015, nin baa ku geeriyooday magaalada Pamplona ee ku taal Spain. David Lopez oo 32 jir ah ayaa doqon ku filan aaggan la ilaaliyo oo uu ku qabto filim ka dhex dhacay 2 dibi xayawaanka oo si aan micno lahayn u ordaya awgeed. Xayawaanku waxay raadsadeen aargudasho marka ay arkeen ninka oo ku habaysan keliya gacanta ugu dambeysa iPhone, halkaasna ay ku dileen. Wuxuu gaaray himilo nolosha ah isagoo qaatay mid ka mid ah iskii ugu fiicnaa weligii. Nasiib darrose sawiradaas waa lala wareegay oo waxaa caddeyn ahaan u haya booliiska dalka Spain. Dhacdada labaad ee la yaab kale waxay tahay da'yarta Ruushka Ksenia Ignayeva waxay ahayd sharaftii Instagram ama nolol dhaxalgal ah. Dookheyda doorashadu waxay ahayd mid muuqata inaanay dhiirigelin lahayn. Waxaan ka haysanaa sawirro xaraashkii ugu dambeeyay ee Ksenia, laakiin nafsadeeda cirka isku shareertay ayaa daliil ku filan u ah inay ku cayaartay hal awood oo dabiici ah oo had iyo jeer guuleystayaasha ku culus. Sida laga soo xigtay saaxiibadeedii goobjoogayaasha u ahaa musiibada, Ksenia ayaa marin habaabisay baarka Selfie UL. Waxay ka dhacday boqolaal cagood cirka. Waad la yaabi doontaa inaad ogaato inay ku dhimatay saameynta ka hor, maadaama fiilooyinka tooska ah ay ku riixeen tiro xadidan oo volts ah jirkeeda jilicsan. Sida la filayay, sawiradan dhicisoobay kama baqin jiilalka jaangooyooyinka Ruushka ee miisaamaya dhismayaasha dhaadheer ee aadka u daciifsan marka loo eego Spider-Man. Dhacdada ugu dambeysa ee 1 waxay noqonaysaa xilliga cusub ee is-shaqaysigu waa mid ka mid ah dareen kasta oo si taxaddar leh loo duubo si loogu dhajiyo warbaahinta bulshada. Gabadhani waxay ku filan tahay dhexda inay ku faraxsan tahay. Nasiib darrose selfie ay qaadatay ayaa ahayd tii ugu dambeysay. Courtney Stratford waxay ku dhimatay Abriil 26, 2014 waqooyiga Carolina markuu gaarigeeda uu saarmay bartamaha wadada oo ay ku burburtay socodka. Gaariga wuxuu ku dhacay gaari xamuul ah ka hor inta aanan loo dirin bannaanka wadada oo toos loogu diro geed. Sida muuqata, haweeneydu waxay dhageysanaysay heesta farxad ee Pharrell Williams, taasina waxay ka leexisay iyada oo ka baxsan waxa loo arko inay ammaan ku tahay waddooyinka dadweynaha. Harry si fiican ayay reerkeedu u go'aansadeen inay u sii hayaan aaska. Halkaasna waxaa inoogu eg barnaamijkeena aan uga hadlaynay dadkii ku geeriyooday ama geeriyooda iyagoo selfie iska qaadaya. Dabcan waxaan jeclahay inaad barnaamijkan aad iyo aad ugu dhiiran doontaan. Fadlan janaalka haddaad ku cusub tahay subscribe, like, siina share garee. Aad iyo aad mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.